من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قفك عاقلك قفك دقالها بدن ماها، قفك الدنيا الرصد ماها. الدنيا دار من لا دار له بالنبي قد عليه الصلاة والسلام. الدنيا واحد دار تهيني كان آخرة دار كلهين، ومال من لا مال له. دقالها الدنيا وحو دقالوي هني كان دقال آخرة كلهين، لها يجمع من لا عقل له. الدنيا وحاء الريب النبي قد إننا عقل لهين. عاقلك واكي وانك قرت وحي الدنيا كي كيني، وانك قرت كي كيني وحو كيني ما شاء الله صعده. من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله. مساجدkii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay nin acraabi oo reer miya, markaasuu su-aasha nabiga u jeediyey, yaa rasuul allah dadka ninkeebaa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi akharuhum lilmowti dikraa wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum alakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi, sharaftii adduunyada iyo karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamadda adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay. dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaanaa. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل. بنبي كويل أبو ذر يا أبا ذر يا أبا ذر بكير الدون إذا جديد سو بدو يقول دار توي كل قية سعيدنا الزيادة سفر كودير يا هاي حكود دجن ولا لك مسلم كو شو وقتي وحالك إلى هاي أجي هاي حكو قناعة في الدين لما أقوله قناعة في الدنيا بالله أقول طاعتي عبادتي يا دينتي انت هيستو وليغا كو قنعن، اما ادويدي يا كسبغا يا ارزاقدا انت الهي كسيه كو قنع تاسا مستحب او جديي. وابا در ازهد امتي واعبدها بالنبي قولي وانك امديدا ugu zaahidsan ugu cibaado badan. man arada an yandura ila Isa ibn Maryam falyandur ila Abi Dar buu nabigu yidhi, ninkii doonaya nabi Ciise inuu arko Aba Dar al-Ghifaari ha arka buu yidhi, zuhdigiisa iyo sidoo adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo mariyuu leeyahay, abaadarow doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada lacagta maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way ku liqi haddii kale, shahawaad iyo qaflad baa adduunyada lagu sheeriyo way ku liqi haddii kale. wa akthar izaada fa ina safara tawiil. saayidana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi abudarow, safarku uu dheer yahay. sayidina abaa hurayra radia allahu canhu ayaa sankaraadkii ooyey. markaasaa lagu yidhi abaa hurayra maxaa loo ooyeysaa? saaxibu rasuulillaahi baa tahee. wuxuu yidhi abkii liqilati zaadii wa bucda safarii. saayida aan wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi. hada abu dar. cumar radia allahu canhu waa ninkii nebigu yidhi low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar. haddii aniga nebi dabaday iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi. jannadaan galay buu nebigu yidhi habeenkii micraashka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay, gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi. markaasaan ku yidhi liman hada alqasri, gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg. waxay tihi nin carab ka dhashaa loo diyaariyey, anigaaba carabe ma cid kalaa? haa nin qurayshaa loo diyaariyey, quraysh ka dhashay, anigaaba qurayshe ma cid kalaa? haa nin ummadda nebi maxamedaa loo diyaariyey, anigaaba muxamede ma cid kalaa? haa bay tiri cumar bnu khadaab baa qasrigan loo diyaariyey. hada cumar. walaakiin muxuu yidhi masaajidkii nebiga khudbaduu ka jeediyey wuxuu yidhi low naadaa min asamaa kullukum daakhiluuna aljannata ilaa rajulan waaxidan lakhiftu an akuuna huwa. haddii samada laga dhawaaqo la yidhaha bini aadanka o dhan jannay galayaan, hal nin keliya naar ka galaaya, ninkaas inay ani tahan u malayn buu odhan jiray. qanaaca fi diin lama ogolo walaalkayga muslimkow. diinta intaad haysato ha ku qancin, adduunyada intaad haysato ku qanac, taasaa mustaxab ah. asxaabu rasuul sala allahu calayhi wasalam qarnigan qurunta adduunyada soo martay qarniga u khayr badnaa bay joogeen, saasayna ilaahay uga cabsoonayeen. adduunyadu lama weynayn, aakhiradaa la weynayd.
أسبابتي أشياء لما وينين عملك صالح إيمانك الله وينا مخلوق لما وينين إله خالق عمر كيسان لوينا من لم يرضى بقضائي ولم يصبر البلاء ولم يشكر على نعمائي فليخرج من بين السماء وأرضي فليلتمس ربا سوائي بإلهي حديث القدس من لم يرضى بقضائي قضاها وحي أنكو حكم أدونك الرالي أنكو أهين نعمة دايدنا أن يقول شكريين بلايدا أنو كيننا كسبرين سمدي أرلد عنك حسن استيها يقتقوا ملك الحقبتو ربك لن حسن استيها إلهي إلى أين حكون مشغول شهواتك أرزاقت هم قريقوا واحد عنا يسوينون كبسيجين طاعة إلهي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي عن طاعة الله قرآنك هو الدعوة لما يسترن ويان والدعوة تامة إلهي والدعوة دين الصينايا وبتكاغو وبتكانوا الشقايا وبتكانوا ورديا يحولها قاد حسابين يستطاعة إلهي كبسيجين النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدويدن هل كان جنة النار تبا لقد يرسنيا هل كان لقد يرسنيا هل كان جنة لقد يرسنيا نارتين هل كانوا لقد يرسنيا أعماشي جنة لقوقلي هل كان لقد قادنيا أعماشي نارت لقوقلي هل كانوا لقد قادنيا فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآن كإلهي نوشيغي أفر تعدو نيو الله والله دقالم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديد وعدو جن ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جن ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هود وعدو جن ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هادع النفط هذا شيطان كان هادع الديد هادع طاعة إلهي إنك سجن الديد إلهي كوجع إلهي أوصيا كوجع علينا أوصيا نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مالين كسحدي حصير صلبوا كسحدي دغخدي با marka feeraha ka qabatay Umar baa dul yimid oo lilmeeyay oo ku kacay nabigu عليه الصلاة والسلام يا عمر buu keenay maxaa ka oohinaya wuxuu ya rasuul Allah waxa iga oohinayay buu adigoo rasuulka Ilaahay ayaa dhagaxdu feeraha ka qabanaysa markaasuu nabigu ku yiri ya Umar maad iga shikisantahay aniga may kala kama shikisaniye waxa ii cuntamila adigoo rasuulka Ilaahay oo makhluuqa ugu khayr badana inay dhagaxdu feeraha ka qabato kisra iyo qaysarna sirridahaba ay ku seexdaan jawaabta dhageyso walaalkayga muslimka wuxuu yiri ya Umar ama tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya ya Umar ma adra liku hayn inay raaxada adduunyada iyo kulixdanka sano ay qaataan inaguna raaxada aakhira aan iska qaadano muslimku mu'minku la dooni ma yeesada dadka kale inuu fikiro meel baad u socota tadambaha kullu weynaato tan ka tag lagu male tadambaha haday kullu weynaato tan adduunyadu way macaanaan hadba qofka inta lacagtu u ziyaado raaxadu uma ziyaado ogow hadba qofka inta adduunyadu u ziyaado walwali wal baharka ku ziyaada hadba qofka inta iimaanka iyo diinta iyo qurbi min Allah uu dhawaadana raaxada ayaa u ziyaadaysa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba qofka amal wanaagsan la yimaada amal wanaagsan shanta waqti oo jamaca ku tukata ayaa kamid amalka wanaagsan min dhakarin aw untha labi yadidig midku dooniba han noqdo ba ilaahay labi yadidig midku dooniba han noqdo wa huwa mu'min xaalaw qofkaasi mu'min yahu iimaan leeyahay falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa kunnolayne nolol lagu noolaado ugu wanaagsan mufassiriintu waxay yiraahdeen nolosha wanaagsan waa saddex weeyaan qalbiga ku daga arsaaqada kugu filaata iyo dadka oo ku jeclaada saddexda wuxuu ilaahay ku ballan qaaday inuu ku bixin iimaan iyo amal saalix dadka laga helo iimaan iyo amal saalix marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso ma aha adduunyada ka nuqsaamayse bal adduunyadu way ku ziyaadaysaa raaxa ku ziyaadaysaa amniga ku ziyaadaya man kanat ad-dunya همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرغ شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له نك همه سكدق أبو الرسول كده الدوية قبو كفكرة آخرة رنتها إن ضاقة كسارة إسكاي اللوبة لابد إن لودين تود عيسى فقرق الله سارة أرميه سنة برية قلبات بار رب العزة كل الشيرية الدوية ما بها لإنتي الله قدر مويانه
waman kaanat alaakhiratu hamahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yihi aakhiro jacalahu allahu ghinaahu fii qalbihi qalbiga ayaa hina iyo raaxa looga buuxiyaa wajamaca allahu shamlahu arrimihiisao dhanna ilaahay baa iskugu soo dhoweeya wa aatatu dunya wahiya raaqima adduunyaduna waxay u timaadaa iyadoo sandullaysan oo hoos socotay timaadaa buu rasuulku yidhi ha ka sii jeesan daacadda ilaahay walaalkayga muslimkow diintan wuxuu ilaahay noo siiyey si adduunkan iyo aakhiro aan ugu liibaano manaaficu diin manfacada diintu aakhiro keliya kama bilaabantee adduunyadana diinta lagu dhargayaa adduunyadana diinta cizi lagu helayaa adduunkana diinta raaxa lagu helayaa adduunyadana diinta amni iyo nabadgelyo lagu helayaa yaa طaalib الrisqi fi اdunya biquwatihi dadka maanta intooda badan daacadda ilahay waxay ku dhaafaysaa waa hungurigaas ismac يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك ما لست تدركه وضاع عمك في همر وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هداد هنقرق ملك استأمرته اسكدا أرلنا انتو تشقى كويدو هداد سمد الشقى لقوقو الشقى وتجدونة الشقى كبشبيو كوقرين مسو قادس أقصر عناءك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد تعبكاga yaree haysdalin xoogaaga iyo caqligaaga iyo cimrigaaga adduunyada ha ku dayicine kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin arsaaqadaadu hadday libaax foodiisa taallo ayadaa kuu imanaysee laa tacjalanna fa ina risqa laysa bilcajali ha degdegin arsaaqada xoog iyo qafqaf laguma hele risqu maktuuban bilawxi maca alajali arsaaqadaadi iyo cimrigaagu waxay ku qoran yihin loox maxfuudka ma dhimanaysid ilaa arsaaqadaadaad dhamaysatid maahayn لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكنه خلق الإنسان من عجلي هذا الصبر لهين رزق يسقى نصدون لها لكن بني آدم كان اسكت دقدقة مر والبا وحول بدقدق بكدونيا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها أفر شيء قف كستوى مسلم أيا لقربا إنه إيمانك سيل على الصلاة inuu iimaanka jadiidiyo inuu iimaanka ziyaadsado iyo inuu iimaanka caalamka o dhan dadka ugu yeedho iimaanka diintaada ilaalso diintaada mar walba cusboonaysiiso diintaada baro diintan caalamka o dhan baa ilaahay ugu talagalee risaalada caalamka siday u gaari lahayn adiga laga rabaa diinta ilaalso kuna qanac diinta ku qanac sayidina cumar radia allahu canhu ayaa nin yahuudi oo saaxiibi ay yihiin oo reer bani qurayduu madiine ku soo maray kalimaad diintii nebi muuse ka mida ayuu ka soo qoray wuxuu soo galay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bnu thaabit iyo nebigoo wada fadhiya buu u yimiday alaa acraduhaa calayka yaa rasuul allah buu yidhi yaa rasuul allah ma kuu bandhiga nin reer bani quraydoo saaxiiba nahay baan kalimaad tawraada ka soo qoree fatagayara wajhu nabiyi calayhi salaatu wasalaam midabkii nebigaa isbedelay bal u fiirso midabkiibaa isbedelay midabkii rasuulka cabdullaahi baa yidhi yaa cumar hakiladka ummuk waydaa gablantee nebigaa wejigiisa miyaanan cadhada ka dareemin cumar u naxay warqadii buu tuuray wuxuu yidhi radinaa billaahi rabban ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonnay wa bilislaami diinan diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba
وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا نبي محمد رسالة دي سي نبي نمدي سنة وكوقنا عن نبي الرالي ما كنا فسر نبي غوفر حي منبر كيبو فولي وحوي نبي عليه الصلاة والسلام اسمع يا أخي دقيسو دادان دوحبا هين والله اسكوه كيسيو دادكينو اسكوه كيسيان اسكدايه انظر هذا النبي وقال عليه الصلاة والسلام لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم بولي هذه ما أنت النبي موسى وندح إيمان لها أنا وندح تاغن وهذه السجر راعي لها يدين واضح الله ودين برسولكم بولي أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين نصيب أياديتهم بولو مده آكه لي نصيب أيان إني هاي بولي النبي يدي آكه شام برسولكم بولي هذه النبي موسى ما أنت وإيمان لها وشريعة دي سي التوراة لا إيمان لها ودانيga iga tagi lahaydeen oo isaga raaci lahaydeen waad halowdeen rasuulku yiri antum hadhi min al umam ummadaha ugu khayr badnayd ummada abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa jannadana galitaanka ugu horeysa ummada jannada inta badan dagaysa maadaama oo tihiin nasiib ayaa inagu helay buu nabigu nasiibkayga ay kiisiyay maadaama aniguna ahay nabiyada ugu dambeeyay imaamkii anbiyada maadaama nahay nasiib ayaa igu hesheen buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam ee shariicadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qancay rasuulku alayhi salaatu wasalaam wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa ummadiisii baa ilaahay naga dhigay ummadan waa ummadaha ugu khayr badan ana wuxuu nabigu yiri hurrimatil jannatu ala al anbiya hatta adkhulaha jannada nabiyada gali maayana waa laga xarimay illa anu aan ka galamaahine wa hurrimatil jannatu ala al umam hatta tadkhula ummati ummaduhuna jannada gali maayaan illa ummadaydu ay gasho maahine قبورها ينبي زيارة بقيع مركز ودعيي وديت لو أني رأيت إخواني وحان جعل هذا يقولون جعل يسنها إنه ولا لها يأركي لها أصحاب توعيكور هذين أولسنا إخوانك مئن أنك ولا لها هين لا أنتم أصحابي إنكم أصحاب تيباتهين ولا لها يواكو عنك دبضي من دونا أي الرومين دونا يكو عنك يارك برسول كودي سيدو قرن دون تا صحابة وحيد هذين دادكاس ما بل أركين أدوكو يكون كما يارك سيدو قرن دون تا قيامها halkay wajiga dhulka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka ugu iman doonaan buu rasuulku yiri 120 saf ayaa jannada galaysa buu nabigu yiri dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yiri atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala abdullah ibn mas'ud baa yiri nabiga maalina uu riyo wuxuu nagu yiri raalima kuntihiin ummadaha marka loo qaybiyo afar qaybood dadka jannada galaya afar marka loo qaybiyo qaybna noqotaan raalima kuntihiin asxaabtu waxay yiraahdeen ha atardawna an takunu thuluth ahli aljanna marka saddex loo qaybiyo qaybna noqotaan ma kuntihiin raali baan nahay yiraahdeen markaasuu nabigu yiri walladhi nafsu muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa oo ku rajaweynahay kay abuuray baan ku dhaartay jannada inaad kala badh idinku degaysaan baan ku rajaweynahay rasuulku yiri ilaahay ummadiisii buu naga dhigay ilaahay uu ina karaameeyay wuxuu nagu karaameeyay waa maxay ummadihii hore shay kaliya un baa laga rabay kaliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan ama ummadan laba shay baa laga rabaa laba shay ilaahay inaad ka yaabto waa laga rabaa ilaahay inaad caabuddo waa laga rabaa aakhiradan inaad u shaqaysato waa laga rabaa khalqiga adduunyada kugu nool bashariyada inaad arinta ugu yeedhana waa laga rabaa مقر النبي وعدي ألا لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم مرب النبي عمري سحجية مركلية مركينا وحويري أنا النبي قدم بي مجرو ومدني قدم بي سانا مجرتي ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة كينا ما أنت لجوغي مغلى يوم كينا ما قارسيب رسولك عليه الصلاة والسلام بلغوا عني أدوا عني رحمكم الله الله إنينا حارسي أما أنا ذا قادوا عالم كيغا قارسية اللهم استر من نصر دين محمد إلهو نكي دين تيدا أوقر برسولك ودي نظر الله امرأ سمع مقالتي مالك وجيدوا أي مدوبانيان بنك قيامة وجيكي الله نوريو نكا هل آيات أما هل حديث يقام مغلي سدو يقام مغلي ومدو قارسيه ورسولك عليه الصلاة والسلام ومدن ومد الأحي دورتي شرفت يا كرامة ومدن وحي كويالتي وشقدي نبينا عليه الصلاة والسلام shaqadaas markay caalamka shaqada laga tagayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaan dalkeena ku dhacday wax kala ma aha waa tarku dacwada markii laga tagay dhibaata timiday إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم مركز حولها
xoolo dhaqata isku xoolo dhaqata aad u jeesataan iyo beeraha qodataan tijaarada aad u kacdaan shaqadii diinta iyo dadaalkii halkii diinta aad ka tagtaan ilaahay dulli buu nuhuwinaya dulli niga saari maayo dulliga niga siibi maayo ilaa diintiina aad u noqotaan maahine ilaa diinikum baa la ilaa diinikum diintu waxay baaqi ku noqonaysaa salaada maaha soonka maaha xashka maaha diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fi kulli zamaan waa in la helo juhdu dacwa mar alle markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culamaa rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidka iyo iimaanka iyo akhlaaqda islaamka u lahaa ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa 16 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya markuu muadinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa marka iqaamadu dhamaatana qofku soo galaa salaadiisii qofkii buu kala dhex maraa wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaada uga baxsan lahayahay oo sunnaha uga baxsanaya lianna aadaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almasala walaalkayga muslimka u faham ta kaliyaad ku badbaadayso ee ku nabadgelaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan cumar ma mara buu nebigu yidhi tog shaydaanna toga kaluu ka sii wacdaa lianna cumar saaxibulxaq buu haa saaxibulxaq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaade shaydaanku waxau ka cabsoonaya waa aadaanka allahuma rabba hadihi dacwati taama lianna aadaanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan sidaa darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu dacwadda maxaa kaloo lagu helayaa fasaadka dhacaya cuquubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya imaam bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi qaryad baa ilaahay u soo diray malag soo halaag baa laga yidhi qaryaddaas soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican cilaaqa ula leh markaasuu yaa rabbi yidhi qaryadan aad igu tiri soo halaag addoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii ilaahay wuxuu yidhi fabda bihi cadaabka xaggiisa ka bilaab lam yatacamar wajhu saacatan fiya dadka aniga caasinaya keyrkii caabudaya ee macsiyada dhex dabaalanaya hal mar keliya wajigiisu kama doorsoominoo kama murugoone cuquubadii cadaabka xaggiisa ka bilaab baa la yidhi alaa wasaluu wasaluu wasalimuu cala man umirtum bisalaati calayh faqad qaala allahu tabaaraka wa tacaala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة من استعد للموت ولما بعد الموت من عرف مقصد حياته العاقل كل العاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني قفك عاقلك قفك دقالها بدلنا ماها قفك الدنيا الرصد ماها الدنيا دار من لا دار له بالنبي قد عليه الصلاة والسلام الدنيا واحد دار تهيني كان آخرة دار كل هين ومال من لا مال له dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhiro ku lahayn lahaa yajmacu man laa caqla lahu
adduunyada waxaa ururiya buu nebigu uhi ninaan caqli lahayn.